السلام الله عليكم daawadayaal meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV isku soo noqod wanaagsan in aadan iswaaga arina kala geysay fiidnimo wanaagsan meel walba dunida ka joogta waxaan rabaa barnaamijka insha Allah inta ugu gudagelin inaan ku soo qaato walaal kamid ah barbaarta gaashaaman oo guul qurux badan la soo wadaagay walaalkan before saan ayuu ahaa waxaan isticmaalu yiri 6 xabba saliida قصة عجيبة أيام الله مريد سليدة أنت استعمالها نيو هير لوشيكا قصة عجيبة أيام اللي وذاك يروح كان لصعو برنامج كنا ما يسترن اسكسون قد ونحسن نيكي اليوم بدر عاوية الصون السلام الله عليكم ضيال ميلو باجوكتان ومرك لي برنامج كيني بدر عاوية تي في وانيقول اليوم بدر عاوية في نيو ونحسن اسكسون قد ونحسن ابن آدم سوايا أرنا يا كلا جيسي waxaan aad niga cudur daaranayaa 4 isbuuc aan ka maqnaa insha Allah hawada iyo walaalaha qaarkood oo fariimo ila soo wadaagay aan kala soo daahay jawaabtooda insha Allah waxaan rajeynayaa barnaamijka inuu sidiisa caadiga ah ku soo noqon doono waxaan rajeynayaa oo kale walaalaha qaarkood oo fariimo ay soo weydiiyay in aan uga jawaabay hal iyo laba intaan ka xasuusto waayo 4 isbuuc wax barnaamij lama soo diyaarin hadday tahay markii ugu horeysa soo booqato channelka Bidar Caawiye TV فضلا وحاسي حشمل لك يا عصرنا سبسكرايب إن أنا جاب قيلين يلاقى هذا تامرك ووريس صوبه الجنال كبدر عاوية تي في فضلا سبسكرايب كا يلاقى أنا جاب قيلين إن شاء الله هذا هو سبسكرايب نص سنة لاقى أنا جاب قيلين وحي فرينا لامبر كشاشة قرن أي يجلسوا يدين كرتا أم وصف كا يجلسوا حرير كرتا أما كومنتي يقول رب وحي فرينا إن شاء الله بإذن الله الكريم وعرّا برنامج كده أوجد قيلين وعاد قعور دارنا يا ولا لا قارقود oo soo weydiiyay barnaamijka maxaa ku dhacay barnaamijka ma baaqday maxaa ku dhacay mashquul binaan waa taqaana howl adduunada ka badatana waa iska mashquulaysan insha Allah laakiin waxaan rajeynayaa in aan ka cudur daaranayo 4 isbuuc oo barnaamijka wada ka maqnaa anigoo Leon Bidar Caawiye insha Allah waa iska howl adduun waxaan rabaa inaan ku soo qaato barnaamijka inta ugu gelin mar walbo inaan ku xasuusiyo walaalaha isticmaalo daadooda u dhaxayso 16 ilaa 26 inay ka digtoonaan madaxooga waxa dib u keenayo ama waxyaalaha isticmaalayaan shaambooyin haday noqon lahayd haday saliido noqon lahayd fadlan hadii aad isticmaasho madoobeysada jeelka hair foodka iyo jilcisada iyo colorka iyo wixii la midka fadlan ka carar hadaa isticmaashid waa madoobeysada jilcisada jeelka hair foodka iyo colorka fadlan ka carar cimri degdeg ay leeyihiin adoo daayar ayaa isku arki doontaa bidaar adoo xilligeeda gaarin ayaa isku arki doontaa bidaan insha Allah inta ka fogaan kartid ka fogow wixii dib ku keenay madaxaaga isticmaal saliidaha harbalka ah ama saliidaha sida baby oil oo kale castor oil-ka iyo wixii la midka fadlan mar walba ku soo qaata isticmaal baby oil daasto isticmaali kartaa saliid qumba daasto isticmaali kartaa castor oil waa isticmaali kartaa Moroccan oil waa isticmaali kartaa qofku uu haysto ayuu isticmaali karaa haddayse wax kiimika lahayn fadlan ku dadaal saliida isticmaalaysid inay hal xabba noqoto wax kiimikana aan lahayn fadlan mar walba waxaan u dhahaa isku day in aad isticmaashid waxyaalaha dabiiciga ah hadday noqon lahaayeen shaambooyinka harbalka oo kale air volume shaamboo kale shaambadan oo kale shaambooyinka harbalka qof markaan la yeelay qaarkood qalad ay u fahmaan shaambooyinka harbalka shaambooyin wax kiimika aan lahayn fadlan weligaana isticmaal hal shaambo weligaana isticmaal ama daa'in hal shaambo mar walba shaambaha u boodin dibka ugu badan dadka waxay ka imaadaan waxay tahay shaambadan qofka soo isticmaalayo ayaa waxa soo bixin shaambo kale qof ayaa u xayeysiinayo tii kale ayuu doonaya fadlan raadi shaambooyinka dabiiciga ah ama harbalka ah oo madaxaaga ama tintaada waxa u dhimeenin fadlan raadso mar walba waa ku soo qaataa barnaamijka insha Allah bidillah kariim ka digtoono shaambooyin kala duwan waxaan kaloo ku soo qaataa barnaamijka Bidar Caawiye TV كلينية فيتامينات ومهم قف كلينية فيتامينات إنه استعماله أما بدار له أما بدار اللهان قف إنه فيتامين كي الصدر والبو هو مهم استعمال فضلا كلينية فيتامين كاهلي سيد دون قلها بيوتين دون قلها كولاجين يهدون قلها سينجها أنت واستعمال كاهلي سيد إن شاء الله برا برنامج كوكوسو غاتا إن جالسي أصحابك كلا أشير جري استعمال كلينياش هربال اسكو دايمر والبنا إن أكوب عزو فيتامينada ah cunayso haday cuntada noqon lahayd xagga kalluunka oo kale qudaarta ayu nooc oo kale badso mar walba barnaamijka ku soo qaata insha Allah billahi kariim waxaan rabaa intaan barnaamijka u guda gelin in aan kula wadaago walaal kamid ah aniga taa waa iloobay barnaamijka maadaama barnaamijku uu socdo bismillaah
maadaama barnaamijku uu socdo qasab waxaa inaan barnaamijka dhexdiisa ku cuno haddii kale waa iloowaya bidcaan baa ahay su-aal igu soo noqotaa marka waxaan rabaa intaan barnaamijka u gudagelin hal iyo laba inaan ka jawaabo su-aal igu soo noqoto oo aada lii weydiiyo kaniiniyaasha dadka qaarka waxay ku leeyihiin maalin walba ma isticmaalaya haa maalin walba min hal xabaa ka isticmaalaysa hadday haystid waayo kan hal xabo kan hal xabo kan kalena hal xabo haddii kalena waxaa ka dhigi kartaa kan habeenka isticmaal kan subaxda isticmaal kan kalena duurka isticmaal waa ka dhigi kartaa qof hadduu hal mar wada cuni karin saddexdooda xabo bismillah cafwan igana leeyahay waxaan rabaa inaan kusoo qaato walaal qiso cajiib ay la soo wadaagay walaalkan wuxuu ku sugan yahay waddanka South Africa uu ku sugan yahay qisada cajiibku ila soo wadaagay wuxuu yiri saliida new hair lotionka ayaa waxaan ka isticmaalay uu yiri 6 xabo 6 bilood ayaan isticmaalay saliida new hair lotionka ayaan 6 xabo isticmaalay bal inta aan gudo gelin barnaamijkiisa walaalkan before saan ayuu ahaa walaalkan before saan ayuu ahaa talo after maxaa is leedahay wuxuu yiri waxaan isticmaalay 6 xabo saliida new hair lotionka 6 xabo ayaan ka isticmaalay uu yiri 6 xabo markaan ka isticmaalay waa 6 bilood kadib saliida dhan waa joojiyay yiri kadib saliida dhan waa joojiyay maadaama dadka layada soo af ku sugan ama ku nool waxay ka shaqeeyaan dad dukaamo leey waaye dad waxa waaye xoogsito oo gabrata waaye walaalkan wuxuu yiri markay dadkii awal ay garanayaan asxaabteedii aragtay waxay leeyihiin war maxaa soo bisay matimaa soo beeratay si isku soo habaysay su'aalihiin kay ugu soo noqdeen 6 bilood ayaa isticmaalayay saliidii waa joojiyay markaan saliidii joojiyay ka bacdi asxaabtii ama kharaabada meelka mar wuxuu leeyihiin timaha ma soo abuuratay xagee timo qurux badan ku soo baxay waa ka 2 bilood waxa isticmaalay ma lagu yiri laakiin 6 bilood ayaa waxaan isticmaalayo yiri 6 xabatan iyo shallada iyo darmarolka waligeed wax keenin ama fitamiin ma isticmaalin uu yiri dabcan walaalkaas fitamiinkiisa hay ama fitamiinkiisa waxa waaye okay jirkiisa fitamiin u baahneen walaalkan 6 xabaa isticmaalo yiri shallada iyo darmarolka ii dheeraayo yiri walaalkan asxaabtii aan isla shaqeynayna ama nooleen ayaa waxay ugu dhiirigelisay inaan saliida maadaama 2 bilood aan ka maqnaayo 6 bilood ayaa isticmaalay 6 xabo waa iska joojiyay 2 bilood ayaan ka maqnaa timiyo qurux ayay ii noqdeen kadib asxaabtii ayaa waxay ugu tireen fadlan ku noqo waxa tinta saan yeelay ay isticmaal jirtay ku noqo saajla adligeed ayaan saliidii ugu soo noqdo yiri hadda ayaa waxaan soo gato yiri tii toddobaad hadda ayaa waxaan soo gato yiri tii toddobaad ayaan soo gato yiri ayaa isticmaal rabaa tii toddobaad ayaan soo gatay hadda ana bilaabi rabaa uu yiri tii toddobaad ayaan soo gatay hadda ayaan bilaabi rabaa walaalkan before waa soo aragtay after oo hadda la joogo walaalkan saan ayuu yahay before waa soo aragtay after oo hadda la joogo saan ayuu yahay cajiib 6 xabo 2 bilood ayaa la joojiyay 2 bilood su'aalata waxaan weydiiyay dadka bini aadamka isku mid maaha qof waxa laga yaabaa in hadduu saliida soo isticmaalayo 5 bilood 4 bilood 2 bilood 3 bilood hadduu lacala joojiyo saliida lacala saliida hadduu joojiyo saliida waxa arkaysa timiye dib ugu noqonayaan haddii qof arkaysa saliida isticmaalaya inuu soo waday saliida hadduu joojiyo timiye ka noqonayaan walaalkan wuxuu yiri waxaan isticmaalayo 6 bilood 6 xabaan isticmaalay waan joojiyay 2 bilood ayaan ka maqnaa kadib ayaan tii toddobaad hadda ayaan bilaabay yiri wax tima ah wax iga daatay malaha wax isbedel aan ka dareemo ma lagu yiri inta isticmaalay wallahi waa cajiib ma sha Allah ya leenahay waxaan leenahay welcome back asxaabta meel walba ka joogtaan walaalkan ayaa wuxuu soo weydiiyay caaga diismo maxaa sabab u ah caaga diismo ay wax kala sabab maaha saliida marka gacanta ku buufiso gacantan ku qabso caaga ku buufi tan kale wax yar ku masaajay dhulka iska dhig hadday gacantaada saliid la caaga taabato caaga wuu diismayaa hadday gacantaada saliid la taabato caaga wuu diismayaa insha Allah waxaan ku leeyahay fiidnimada ku wacnato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu